horta marka hore ciid mubaarag adiga iyo dhammaan muslimiinta adduunka iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba uu joogo iyo muslimiinta dalka Itoobiya iyo kuwa shacabka deegaanka Soomaalidu dhammaan waxaan leeyahay ilaahay ha inaga aqbalo bishii Ramadaan ajrigeedina hayna siiyo dhammaantiina ku wada ciid wanaagsan ciidan hadda aynu ku jirno annaga deegaankanaga sanadkii waxaan malaynayaa saddexaad amni iyo isbedel iyo shacabka oo dhanka diinta xor u noqda aanu ku jirno marka xilli aan cabsi jirin xilli shacabku runtii xorriyadiisii iyadoo kala aragti duwanaansho siyaasadeed iyo tabashooyin ay meesha tahay haddana xilli dadku maaragtay isbedel wanaagsan oo naruuro iyo uu dhex yaallo ayaa kusoo beegantay. waad mahadsan tahay madaxweyne haatan madaxweynaad tahay markii aad yarayd maxaad ka xasuusataa waxyaalaad ku ciidi jirtay iyo ciidaadu siday ahayd? horta anigu ilaa iyo yaraantaydii dadka maalmaha ciidda suga ee ciiddu macnaha weyn u leedahay sii shantiriye ay yidhaahdaa saddex ba harsan laba harsan maalinka ciidda diyaargarow u sameeyaan ayaan ku jira waxaan xusuustaa 12 sano ka hor jiro kale maalmaha ciidda waxaana dadka soo ururiya oo heesaha ciidda oo kale maarta u shida marka maalinka ciidda aniga ahmiyad gaar ay leedahay ilaa iyo xalay oo aan sugaynay oo aan islahayn malaha ma birin noqota ilaa iyo maanta dharkii baa noo feereysan kabihii baa noo yaala ciidu joog baanu nahay allah maanta ayaanta iyo ciidda wanaagsan ilaahina siiyey isaga kuwa baadle ayaan qaadayna ilaa marka waa tahay aad baa u mahadsan tahay haddaan hadalkaagiiba hadal iga raacay waxaad ii sheegtay inaad isu soo ururin jirtay dadka oo aad ciidda sugi jirtay oo dadka dareenka ah farxadda la ciidda ay u lahayd aad ka mid ahayd marka heesihii hadda heestan waa heesta ciidka dhanka fanaaniinta ama fanaaniinta Soomaalida ah keebaad dhegaysataa heesahooda wax ka xasuusataa ragga iyo gabdhaha? aan aad u dhegaystaa ragga Cabdi Tahliil Warsame Allahu naxariisto iyo Allahu naxariiste Maxamed Mooge Liibaan waxaan oran karaa heesaha guud ahaan dadka aan ka caajisay heesahooda gobolada aan ka caajisay kuwaas ka mid ah laakiin fanaaniin fara badan oo heeso macaan laho aan jecelahay u jiraan dhanka dumarka course muxuu Khaliif Magool oo ahayd maaragtay phenomena runtii maxaa ahaayay muusiqa mucjiso la oran karo oo ahayd iyo maandeeq dad kuwii hore marka anu aynigii continue lixdeedii ma ihi laakiin heesaha oldiga ee horaan jecelahay dhalinyaro fara badan oo cusub oo wanaagsan oo inaan maaragtay aan xaqiro aan ahayn oo hobalayna way jiraan. waa tahay Cabdi Tahliil baan soo qabanaynaa maadaama xoogaa xagga ragga aad u jinjeersatay madaxweyne oo mahadsan tahay Cabdi Tahliil heesihiisa mideebaad adigu jeceshaa mid dareen gooniyo kugu lama jirtaa heesihiisa markaa dhegeysa? anigu hadda heesta aan ugu jecelahay waxaan oran karaa mana aha siyaasadda hadda aan ku jiro iyo deegaankan aan ka soo jeedo midna laakiin heestiisa uu la yiraahdo yaa war dheer ku soo bara haye maxaad naga heestaas runtii ugu jecelahay qaabka ay u dhacdo iyo tilmaamta uu ka bixinayo aagaas iyo aqoonta dhulka aan u leeyahay oo iskeenaysa noo qaadi kara wegareeya adduunyadan jacayl wadax ma noqonin weglowga ma jeede wiilaan dhalay magtiisa maydii haweene saas ahayd baan malay. waa tahay aad baad u mahadsan tahay madaxweyne waxaan ku yar hareeriga wadnaayo yaan inta dambe ka tegine haye hareeriga wadnaayo iyo aad walwaala aragtida yaa war dheer ku soo bara aad u mahadsan tahay madaxweyne waa iska soo gabagabeynaynaa qaybihii dambe aan taagannahay hal xaboo gogaalaysiya waa tahay googa xeradayadu waa wada ul la qaatana male waan garanayaa waan marin xeradayadu waa wada ul la qaatana male waa ku sheegay hada waan garan waay waa geesaha xerada marka ariga lagu xareeyo dee geesay leeyihiin riyihii markaa waa tahay waad mahadsan tahay ugu dambayntii madaxweyne hees aad xifdisan tahay oo tay doonta ha noqotee talow aad nooga tegi lahayd miyay kaa dhex guuxaysaa? maxamed Salmaan baa qaada heesta waxaa la yidhaahdaa cimrigiiba jacayl cusayb ma haddadu cudurkaani haya cablawaad maqasheen cantar baanahayo cimrigiiba jacayl waa waaqib xun yahay cimrigiiba jacayl waa waaqib xun yahay heesta lahada weeyaan ciid mubaarag.